mas-uuliyiinta dowladda ee labada gole golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka guddoonka gobolka iyo degmada ganacsatada culaamadiinka guddiga horumarinta garowe iyo inta kaloo halka joogtaba intiinaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa maalin farxad waa maalin roob waa maalin khayr oo isku soo kulantay bishii barakaysnayd iyadoo khayrkii ramadaanka lagu jiro khayrkii roobka ilaahay looga xamdinaqayo haddana in bulshada reer puntland ay arkayaan sida ay isugu tashanayaan siday danahooda uga tashan lahaayeen dowladdu waa dadkana in ay isku tashadaan waa wax waajib ku ah haddaysan dabka iska demin oo colaadda iska demin oo gaajada la dagaalamin oo dhibaatooyinka kaleeto ee bini aadamka ku soo wajaha ay meel uga soo wada jeesan hadda dad gaara wax ma gaarayaan bulshadoo dhan bay wax gaarayaan marka in dadku isku tashado oo dowladdoo dadka ka mid ah ay danaha guud ka shaqayso waa muhiim waa sax dowladdu waxay u igman tahay danaha guud ee dadka ka wada dhexeeya dadka ganacsatada ay ku hawlan danaha gaarka ah inay ka shaqeeyaan haddana marka shirkadaha sidaan oo kale ay u waaweyn yihiin oo yihiin shirkado la wada leeyahay iyaga naftarkooda waxaa lagu tilmaamaa public waa public shares waa dad waxay wadaagaan dadkoo dhan bay taabanaysaa marka in ay waxyaabaha ku waajibay oo bulshadaas ay u shaqaynayso kana dhex shaqaysanayso uga waajibay inay kaalin ka qaadato iyadana waa waajib oo aan filayo xeerarkooda iyo shuruucdoodan inay ku jirto laakiin su-aasha waxay tahay wixii waajib kugu ahaa markay gudanayaan iyo dowladdii u igmanay danta guud inay ka shaqayso haddaan wada shaqayn ka dhexaynin waxaa dhici karta shaqadii loo baahnaa inaan sidii u habboonayd loo qaban insha allah waxaan ballan qaadaynaa in shaqada guud ee dalku u baahan yahay ama midda dowladdu hayso ahaato ama midda gaarka ah ahaatee inay wada shaqayn dhow ka yeeshaan waxaan dhowaan haddii ilaahay idmo soo bandhigin doonaa qorshaha dowladda ee ku aadan dhinaca horumarinta oo muddo laga shaqaynayay aragtida guud oo la rabo sida dalka horumarkiisa dhinacyadiisa kala duwan looga shaqeeyo dowladduna ugu shaqayso dadka kaleeto oo aan dawliga ahayn oo ama ganacsatada ama civil society kale ama culammada ama qaybaha kaleetana iyaduna qaybaha ugu aadan uga qaataan maxaa yeelay waxa aan qabanayno ma aha wax dad gaar ay qabanayaan waxaas kala duwan qaybahaas kala duwan ay qabanayaan waxa ka dhasha baa quruxdu ku soo baxaysa marka nabadgelyada taasaa dhalaysa horumarka taasaa dhalaysa caafimaad wanaagsan in lagu noolaado taasaa dhalaysa bulsho wacyilele inay soo baxda taasaa dhalaysa runtii hawsha la sugaayo ma aha hawl cid gaara u igman tahay ama dad gaaray leeyihiin waxaad ogtihiin marxaladda aan ku jirno waa marxalad xasaasi ah waa marxaladdii dalku dhismaayey dalka soomaaliyeed marxaladduu dhismaayey siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo aragti ahaan xilliguu dhismaaya lagu jira dhismahaas dadka reer puntland haddaysan u diyaargaroobin inay qayb ka ahaadaan oo ama qayb ka qaataan waxaa dhacaysa waajibkii laga sugaya inay ka soo bixin qaybta ugu weyn oo ka aadan oo laga sugayo waxaa la weeye inay aragtida ay rabaan inay uga qayb qaataan ay isku mid ka ahaadaan haddaan aragtidu midaysnayn shaqada la qabanayo macno badan yeelan mayso marka waxaan aad ugu dardaarmayaa aragtida puntland ee ku aadan horumarinta dhexdeeda iyo horumarinta soomaaliya iyo horumarinta rijinka maxaa yeelay xuduudaha dowladaha aan la leenahay ama kuwa badda ahaade ama kuwa beriga ahaade haddaan aragti cad ka lahayn ama shaqo fiican laga qaban naftirkooda daadku waa nagu soo dilaamaya marka waxay u baahan tahay shaqooyinkaas la filaayo ma aha shaqooyin dad gaar u yaalla laakiin waxaan ku faraxsanahay inay qolo walba ay garanayso khaasatan shirkadda golis si gaara ayaan uga mahadnaqayaa arrintan ay qabatay oo runtii arrin aad dadku u tabaayeen ah maxaa yeelay magaalooyinku waa sii badanayaan guryuhu waa sii dhaadheeraanayaan habkii hore wax lagu damin kari jiray suuragal maaha in lagu damiyo markii guryuhu iska yaryaraayeen
afarta dhinac waxa laga yaabaa baaldiyo biyo in lagala istaagi jiray laakiin hadda barguryaha dabaq ugu sarreeya markuu gubto see la yeelaya waxay u baahan tahay xataa haddii qalabka la soo gado oo dad aan xirfadii lahayn ama jarjooyinka la rabo in lagu gaaro ama meesha la rabo haddaysan samayn karin iyada naftirkeeda macno yeelan mayso insha allah waxaan rajaynayaa waana develop garayn doonaa magaalo gaar uma taagnaan karto maintenance iyo tababaradu isma raaci doonaan waan ka fakaraynaa marka doodaheeda ay dhidlaadaan in la samayn karo hay-ad gaar ah oo hay-adda difaaca madaniga ah oo isugu jirta dabdamiska iyo gargaarka degdega ah si ay u yeeshaan xarumo gaara iyo miisaaniyad la isku halayn karo cidda wax taraysana ay halkaa maaragtay ay ku darto oo ay maaragtay magaalooyinkuna isku xirnaadaan oo haddii mararka qaarkood la isku gurman karo meelaha qaybtood xataa haddii ay magaalo walba gaarkeed u istaagto mararka qaarkood waxaa dhici karta inaan wada shaqaynta ama coordinationku uusan hagaagin marka dhinacaas dadka in naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda la difaaca la rabo difaaco askar keliya oo xabada meela la fadhiya maaha dabku waa aafo xoog leh haddaan loo diyaar garoobin naftirkiisa dhibkiisu leeyahay marka waan ka mahad celinayaa runtii shaqadan quruxda badan ee qabsoontay waana rajaynayaa in puntland markaan ay u soo jeesan doonto waxyaabaha dadka sida tooska u qabanaya in laga wada shaqeeyo waxaan rajaynayaa alaabtaa la wareejiyey sida looga dardaarmay inay noqoto oo la ilaaliyo oo si saxa loogu shaqeeyo aysan dhicin ninka dareewalka oo bahalkaa loo dhiibay intuu yidhaahdo meel baa alaab ka soo qaadanayo gaariga iska ordaaya magaalada aan la arag sida dhacda waxaa arkaysaa gaari qori ku rakibay oo ku leeyahay qaad baan ku doonanahay marka dhaqanka noocaasa inuu kan ku seefsafoobin waa la rabaa maxaa yeelay dadku markay arkaan gaarigaas magaalada maraayo waxay isleeyihiin meel baa basbeesh ugu yaraan morally dadku waa tension buu kacaya marka baabuurta iyo sida loo maaragtay iyo xilliga shaqada oo socoto ruuxadida dad tababaran inay noqdaan oo maaragtay aan dhibka jira dhibka weyn aan geysan mararka qaybtood dadku markay gurmanayaan waxaa dhici karta iyagoo meeshii la rabay aan gaarin inay meelo badan ama sii jiiraan ama dadka la dilaan ama oo tensionka noocaasa tababar la'aanta inay keenayso marka insha allah waxaan rajaynayaa in ay bays fiican yeelato sida hadda uu maarayaha shirkadda uu sheegayay alaab badanoo noocaas oo waddanka soo gashay oo iska baaba'day dayacdarra darteed marka insha allah taasna waxaa la rajaynayaa in si midaysan looga wada hortago aad baa u mahadsantihiin waa iniga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad